Ay, salaamu ullahi calaykum guud ahaan gaar ahaan intiin ardaydeena iyo dad kalena casharka u duubanaba meel walba aad joogtaan aad baa idin salaamayaa inta kadib sidayna bilaabanana marka waxaan ka hadlanaa waxa weeyaan ama waxaan doonaya inaynu midho saarno waxa weeyaan istaraatiijiyad inoo fududeynaysa in sida suuqa loo analyse gareeyo markaan casharkan dhameeyo su-aalahan iska weydiin doona hadii la yidhahdo qolkeena practicalka waxaa samayn doontaan wax walba analyse-ka lacagaa idin diran waa analyse garan doontaan waa soo sawiri doontaan waxaan kaloo samayn doonaa mararka qaarkood markaynu gaadhno isla isbuucan dhexdiisa insha allah marka xisadaha dambe gaadhno sida interiga laga soo saaro waa iin soo diri doonaa qolka waa iin soo dhigi doonaa lacag hebla interi pointi ka soo saaro qof walba waxaan doonaya marka inuu soo sawiro si aanu isla aragno naqshada uu qaabka ama naqshada ama qaabka qofkaas isticmaalay cadiyan nidaamkan horta aan hadda doonaya inaan bilowno ama cashkan hadda aan gelinaa marka koowaad horta isagu wuxuu xooga saaraya marka koowaad wuxuu xooga saaraya uu ka hadlaya waxa weeyaan sida suuqa loo analyse gareeyo analyse-ku siyaabo badan baa loo analyse gareeya marka lagu leeyahay analyse-ka waa sida suuqa loo akhriyo maxaa suuqa ka jira maxaa dhacaya sidee ku ogaan karaa xagee loo socdaa sababta hoos loogu dhacay maxay tahay sababta kor loogu dhacay maxay tahay ama news ha yimaado ama kala yimaado suuqu structure buu leeyahay structurekiisa xilli walba uu raacaa haddaad aragtaan news soo dhacay oo lacagta xoog meel u dhaqaajiyey meel loo socdo bay hore u gaadhaa ama meel laga soo noqon lahaa bay hore uga soo noqotaa haddaad analyse-ka aad u fahantid ifan istaraatiijiyadda newska aadaad dejisanaya interior istaraatiijiyadda aadaad dejisanaya wax walba adag ku fududaanaysaa marka nidaamo kala duwan baa la raacaa saynu hore usoo sheegnay qofku suuqan hormooni kuma analyse gareyn karo sidoo kale kuma analyse gareyn karo hal mar ilidoy sidoo kale kuma analyse gareyn karo chart pattern labadiisa nooc continuationkii reversalkii hal mar qofku waxaasoo dhan suuqa kuma baari karo saa darteed muxuu u baahan yahay hal meel hal system inuu qabsado halkaas system muxuu ka saacidaya wuxuu ka saacidayaa in go-aanka uu qaadanayo iyo wuxuu raadaya uu horey u qaato horey u fahmo horey uga baxo haddii analyse-ku kugu qaato 30 daqiiqo 20 daqiiqo 10 daqiiqo saacado kugu qaato walaal lacagtaas aad gishid ama signalkii lagu soo diraa lahayd aad iska hubisid kuwa dhaafiye idaa waxa ku soo hadheenba sidee ula macaamilaysaa saa darteed waxaa muhiim oo aad iyo aad u muhiim qofku inuu waqti yar ama mudugtadiiba kaga dhex baxo suuqa kuna faa wax meesha ku jira taasay u fududeynaysaa inuu yeesho analyze system isaga u gaara waay analyse-kan waxaan raadinaynaa marka innaga waxaan raadinaynaa waxa yidhaha continuation patterns hadda continuation pattern waxa idinka hadli maayo shuruuciisa ka hadli maayo cashar bayn ka duubnay waan ka hadlan halkaa iga dhig laakiin waxaan ka hadlayaa marka waxaan garan kartid si u fudud ee aad ku aqoonsan kartid haddii ilaah yidhahdo steps baan u sameynay step 1 step 2 step 3 step 5 iyo notice waaye step 1 ku muxuu noqon doonaa marka number 1 halkan waxaa dhowr qodob baa inagu jira qodobada ugu hore waxaa kamid ah inaad isticmaasho trend line sidoo kale inaad time frame kooban kasoo bilowdid sidoo kale time frame walba timaadid haddii chance trend line kuu sameynayo inaad samaysid isla markaa sharciga trend line ka raacdid oo laba jeer ka badan kuu taabto waxaan isticmaalanaa waan kugu yidhi waa trend line only trend line baa isticmaalanaa dadku waxyaala badan bay isticmaalaan horizontal line baa la isticmaalaa harmonic patterns baa la isticmaalaa anigu waxaan isticmaalayaa haddeer statistican only trend line ka isticmaalana waa qodob labo xaggan ka sawiraya mar walba correctionkii bullbaga mar walba ka sawiraya mar walba xagga dambe bullbaga lambar 1 yaa sawirka xagga hore hadii sawir baahato oo u tegi doona waa sharci kale si imbalse correctionka aan u kala fahmo mar walba bullbaga baan ka sawiranaa saddex sharcigii maxaan raacanaa waa inuu taabtaa laba jeer oo aysan ku jirin markuu marayo hadduu markuu marayo iyo mar kale qoriyo kuu taabto haddii trend line sawiratay kadib uu kuu taabtay ma labaadkii uu soo noqday ay tahay markuu marayo trend line maaha waxaan adaa waxa jeclaysatay inuu trend line ku noqdo waa inuu tanna ka noqdaa saddexaadka waa u arki kartaa inuu trend line yahay isla markaana waa u arki kartaa support and resistance inuu yahay trend line-kani waan hore usoo dhignay cashar baan kusoo dhignay casharada ugu horreeya wuxuu u shaqeeyaa sida support and resistance uu shaqeeyaa suuqnu sidiisaba qaacidadan qaata suuqu sidiisaba wuxuu laba nooc u ahaa marka laga tago joobiga ranking market iyo trend market boqolkiiba soddon waxay dhahdeen suuqu serious wuxuu ku jiraa trend inta u badan wuxuu ku jiraa ranking market in yar buu dhaqaaqayaa cabaar badan buu ranking ku jiraya saddex kan baa dhaqaaqaya 10 kan baa ranking gelaya u fiirso saddex kan shan kan soo dhaqaaqaya laba jibaarkii ranking gelaya laba qaabkaas uu shaqeeyo suuqu hadda intaas oo dhan ranking ku jirto boqolkiiba 70 waxay soo ku jira ranking waaye rankingka suuqa ku jira marka macnuu sameeyaa rankingka suuqa ku jira waxbuu kuu sheegayaa waan soo sheegnay chart pattern baa la yidhahdaa chart pattern waa luqad lagu wada hadlo wuxuu kuu sheegayaa chart pattern kani
easy wuxuu kuu sheegaya wuxuu ku leeyahay tradekan suuqan wuu sii soconaya ama suuqani wuu noqonayaa it was wuxuu kuu sheegayaa waxa la yidhahdo suuqani wuu soconayaa hadduu soo socday haddana wuu sii socon doonaa markuu ranking galo rankingaas muxuu ku odhanayaa la soco suuqa wuu sii soconayaa haddana ranking wuu samaynayaa la soco wuu sii soconayaa haddana ranking wuu samaynayaa la soco wuu sii soconayaa ama muxuu ku odhanayaa suuq waa soo socday muxuu ku odhanayaa may ranking buu gelayaa may buu ku odhanayaa way ranking noocaas u galay waa noqonayaa ama ranking kale u gelayaa noocaas ah waa noqonayaa ama ranking noocan u gelayaa waa noqonayaa kadib chart pattern ka soo hadalna waxaan kala bixinay reversal patterns iyo continuation patterns halkaana dib aad ugu noqon kartaa aanu imaado marka anu maxaan isticmaalaa marka suuqa maadaama wuxuu leeyahay pattern kuu sheegaya in horey gadaal loo soconayo aniga waxaan isticmaalaa nooca la yidhahdo continuation patterns waxaan raadiyaa ranking ama chart ama pattern ama naqshad ii sheegaysa suuqan inuu hore u soconayo markaa naqshadda aragtaasoo hadda tanoo kale uu soo baxay naqshadaas kale waa inay samaysataa naqshadda maxay sheegaysaa suuq inuu hore soo aaday mala socotaa hadduu soo dhaafo wuu naqshadii sameeyaa naqshadda continuation pattern baa la yihahdaa ama correction baa la yihahdaa suuqa strategiyadan baranayna marka waxay tahay suuqa markaad soo geshid adiga maxaa raadinaysaa naqshadda shaygan baad raadinaysaa shaygan aad raadinaysid meeshuu ku jira ugu dabagelaysaa you make him money saaxib lacag baad ku samaynaysaa hadaad doonaysa weeyaan si fudud inaad tradekaa daqiiqada ku heshid waa inaad meel qasab maaha dariiqadooda inaad raacid continuation patterns qoliya inaad jeclaatid adiga kuu fududaada waayo ujeedka meesha u nimi waa inaan ka shaqaysano forex trader traders waxaan noqonay inaan ka shaqaysano sida kuu fudud uga shaqaysan karta uga shaqayso qasab maaha forex oo dhan inaad qaybtid casharado waxaasoo cashara 6 kun oo cashara waxaasoo dhan uma baahnid waxaa u baahan tahay adiga dariiqo fudud baro cilmi baro si fiican u baro ka shaqayso ka xamaalo ay dad intaa dadka bar intaa aad baratay dadkana sii bar waayo laba shay baa dadka wax u fududeeya inay si wacan wax ka fahmaan ka bartaan inta uu ilaahay ku xidhan yahay iyo intuu cilmiga faafinayo labada shayba aad bay kugu fududeynayaan labada qaacida qaad weliga dad doonaysa inaad horumar gaadhid xariga ilaahayna ilaasho muslimiin bayna ilaah bayn xarigina ilaashanaana sidoo kale waxaana inta yaraa taqaanid bar weli waxbaan baranayaa iyo layma gaadhin iska daa intanaa taqaanid iyada intaa ka adko oo wax bar waaye maxay nidhi marka inagu waxaan isticmaalaynaa kow trade line second maadaama trade line isticmaalano second sinka isticmaalaynaana waa maxay shayga labaad aan isticmaalaynaana waxa weeyaan waxaan ka sawiranaa bullbag shayga saddexaad waa maxay mar walba oo chance trade line ii soo baxo haddaan time framekii horaan joogay aan kasii daadego oo ka hooseeya aan u daadego oo aan ku arko chance trade line inuu ii samaysan yahay horaad ka gelaysaa oo aragtid chance trade line kuu samaysan yahay hore baad ka gelaysaa macnaha hore baad ka sawiraysaa trade line-kaana markiiba isna waa sawiranaysaa halkaana way la fahanteen baan jecla waaye sii soconna marka step isku xiga maxaa ahay marka waa ila fahanteen baan jecla waxaan isticmaalaya waa trade line kow sidoo kale waxaan kasoo bilaabaya time frameka waaweyn sidoo kale sharciga trade line-ka ilaalinaya trade line-kaas wuxuu trade line yahay marka laba jeer la taabto steps-ka koowaad way fahanteen waa wax fudud qofku hadduu intermediate-ka soo fahmo ama forex isku xiga soo fahmo waa istiraatiijiyadu isticmaali karo waxaan xooga ugu jajabiyey inaynu si wacan waa isticmaali karno iyo markaan dabaranayay waan xoog usii baranayay xoog u jilcinayay saa u barto oo aada ugu barto waaye time frame step 2 waa maxay ka u horeeya markaad eegtid chance trade line inuu ku jiro sidoo kale mar walba soo degtid ku xigana waxaad eegaysaa chance kale waaye mar walba maxaa isticmaalaysaa trade line nool ama shaqaynaya oo aan lagu samayn brig out sidoo kale mar walba maxaad ka sawiraysaa bullbagga oo qodobada waan sii sheegay kuwa hadda sii sheegay weeyaan waa tan qaacidada marka trade line-ka isticmaalay horta trade line shaqaynaya hadda halka kusoo sameeyo eeg exactly trade line-ka soo saxsan yahay laakiin trade line shaqaynaya ma maxaa dhacay waa brig out baa lagu sameeyey already waa la dhaaf marka suuqa imaado chance trade line waa inaad eegtaa waxaad eegaysaa chance trade line baad eegaysaa trade line-kan keebaa shaqaynaya hadda kan exactly uu shaqaynaya ma ujeedaa sababta uu shaqaynaya maxaa kaloo uu shaqaynaya sababta brig out laguma samayn lama dhaafin
markan baa la taabtay waa laga tegey waa lagu soo noqday waa laga tegey stiil waa lagu soo socdaa haddii lasoo dhaafo isna shaqadii maayo halkaasa trailinkan ka abuuranaya isna shaqadii wuu gabay marka waxaa waajiba trailinkan isticmaalaysid ee u dambeeya isticmaalaysaa waa inuu yahay mid shaqaynaya kuwan hore waxa u isticmaali kartaa keliya si aad u ogaatid historiga waayo trainline suuqani markuu trainlineka kusoo socday qaacidadaan qaado markuu trainline kusoo socday uu soo dhammaado ka kale ilaha halkee ku dhamaanaya meesha ugu sokaysa ku dhamaanaya waa ilaa kii kale madaxiisii uu ku dhamaanaya waa dabeecadii leeyihin trainladu 8% oo corruptionka ama imbalsiga inuu soo dhaxaa saa darteed inaad taariikhda hore eegaysid meeshuu kasoo bilaabmay iyo meeshuu gaadhay inaad eegaysid waa meesheeda laakiin adiga waxaad isticmaalaysaa haddaad doonaysid inaad ogaatid hadda waxa meesha dhacaya trainlineka hadda nool ee hadda shaqaynaya baad isticmaalaysaa si aad u fahantid waxa hadda dhacaya waaye sii soconaya marka intaana stepskana waa layla fahmay oo trainlineka ku shaqaynaya corruptionka waan ka soo wartaa trainlineka intaa waa layla fahmay trainlineka ku soo celceliyo waxaan jeclahay in intaa layla fahmay waaye second thing saddexaad waxa weeyaan shayga saddexaad waa maxay step 3 waa inaad fahansantahay waxaad raadinaysid markaad isticmaalaysid trainline ma kula isticmaalaysaan waxaan ku irtay frameka weyn kasoo bilaabaysaa kuwa hoose aadaysaa waxaa waajiba inaad garanaysid maxaad raadinayaa waayaan trainline ku isticmaalaya waatan marka stebiska kuwadan qaadana waxaan ku iri marka hore trainlineka weyn time framekan aad iyo kan noo soo bilow sida templeka loo save garaysto mid cad looga dhigto sadii ugu horreeya basin kusoo qaadana maxaan sameynaya haddeer trainline baan soo qaadanaya waa kan trainlinka haddaan hore u kala garanayn kanag no oo jabay ma shaqaynayo waayo waa la dhaafay uu jabay waxa laga wadaa waa la dhaafay brigodka waan soo dhiganay marka resistantga sportiga la dhaafo qiimuhu dhaafo maxaa la yidhahdaa brig out ama uu jabay qiimahaasi ama sport resistantga isku shaqayn maayo kana waa tijaabsanaysa kana tijaabso bum kana ii shaqeeyey waayo ku soo celiya halkaasaan ku celinaya la soco waxaan tegey trainlinekii baan tegey time frameka baan tegey kasoo qaad 15 min 1 hour meelahaasan joogay shardi number 1 xagaan tegayaa time frameka weyn haddaan doonayna 1 hour ka galo waxaan kasoo bilaabaya dheyga saa darteed xagaan tegayaa dheygaan aadaya la socotaa waaye marka halkan maanta waxaan sameynayaa trainline baan soo qaadanaya trainlineka waxaan kusoo waranayaa meesha chance ka banaayay sharciga trainlineka muxuu ahaa waa inaan helaa 2 week waa inaan helaa 2 fiiq oo bullbag ah bullbag maxaan ka wadaa hadduu up train yahayna waa xagga hoose hadduu down train yahayna waa xagga sare waa inaan helaa 2 fiiq oo siman waaye ka koowaad baan kusoo qabtay labaadna waan ku qabtay toos waan bixinaya ma ujeedaa labadaa fiiq waa shardi inay sameyn yihiin sidoo kale haddaa kan ka sarreeya aad ka bilaabatin haddaad tiraahd kanaa ka bilaabanaya oo tusaale ahaan aad halkani already rangi buu soo ahaa waa laga soo baxay qiimaha ugu horreeya kanuu iga bilaabmay kan labaad buu iga bilaabmay kanaan ka bilaabanayaa waa inaan ku xigtaa la sintaa laakiin mar walba bullbag imbalsigii ugu horreeyey baad ka bilaabaysaa mararka qaarkood wajigaad ka tegeysa mar walba maxaa ka bilaabaysaa imbalsigii ugu horreeyey imbalsigii labaad ka ugu horreeyba ka bilowday maxaa samaynaysaa marka ka ku xigana la sin waka already waa kuu sawiran maxaan sameeyey haddeer 2 step baan qaaday time frameka weyn baan ka imid kadibna maxaan sameeyey waxaan sawiray trainlinekii maxaan raacay sharcigii trainlineka labadii fiiqa ugu horreeyey baan shayga saddexaadaan sameynaya waa maxay ka hooseeya u degayaa u fiirso ka hooseeya baan u degayaa markan ka hooseeya u dega maxaan sameynayaa chance trainline hadduu ka banaayo waa sawirayaa waaye halkanaan ka eegaya trainline ma banaanyay halkaa trainline baa ka banaanaa trainline la isticmaalay buu ahaa soo ma waka sawiraya hadduu shaqeynaya haddii kale waayo markii la soo jebiyey baan ogaaday waa sax wuxuu ii sheegay goorta la soo jebiyey
goorta la soo jabiyey wuu sheegay sidoo kale sharcigu waa maxay maxaa raadinaya halka marka maraso qodobkaas uu diinaysa waxa weeyaan waay aan tareelada soo safaraya maxaa raadinaya maxaan doonayna inaan fahmo qiimahan maxay macnaheedu sameynaysaa tareelan ka noqday waata waxaa raadinaysa waxa la yiraahdo imbalance correction waa maxay suuqu muxuu ku abuuran yahay dhaqaaq soo noqosho dhaqaaqa koowaad suuqu dhaqaaqayo ama buy haw dhaqaaqo soo dhaqaaqay waxaa la yiraahdaa imbalance oo casharada hore ku soo dhiganay soo noqoshadu soo noqonay maxaa la yiraahdaa pullback marka waa imbalance correction suuq soo dhisay saas soo socda haddii kale waa waxay wareegi market waa suuq islaaleed suuqu sida caadiga way fiqiisu kala sareeyaan sidaas kale كحيل هاير عشرة دولار تقول نقطة ترين ماركتينج كسر دقيقة 10 كواد حال غير ممكن فهمتين كان هو إمبالس كان هو كروشن إمبالس هو محور موجود كواد مفتي كواد حتى محل هذين يا مركا وحين هذين أنا مركا محيط سوق أنا وحين راح أخش غيا إمبالسيو كروشن إمبالسيو أخش غيا كروشن مركا وحين هذين أنا هذير سين هو قوسان إمبالسيو وشيت كان هو قوسان أنا محيط waayo suuqan waxa laga galaa imbalsiga correction-ka lagama ganacsado inta yar sallama yiraahdo suuqa hadaad tiraahdo waa buy hadaad maqasho suuqaas waa up trend baa laga wadaa hadaad maqasho suuqaas waa buy suuqaas waa up trend baa laga wadaa up trend waa maxay waa imbalsi correction kor soconay imbalsi kor soconay correction imbalsi marka maxaa la geliyaa mar walba correction soo sameeyo soo noqdo baa la sii raacay imbalsiga cusub halka waxa u baahan tahay marka inaad ogaatid si inaad heshid meey imbalsigii si aan u galo trade ku raaco imbalsigu xilliga ugu saxsan bartay inay shimo u tahay sida xilliga ugu saxsan goormaad ogaanaysaa waxa ogaanaysaa markaad kala baratid maxaa marka ogaanaysaa waxa raadinaysaa where is the imbalse haddaad imbalsiga heshid maxaad helaysaa correction-ka waxaad helaysaa bullback haddaad heshid maxaad helaysaa meeshaad ka soo raaci lahayd boom markaas waa caadiya marka halkaa ma ila fahanteen hadday ila fahanteen waan soo qora waxaan raadinayaa waa imbalse correction waxaan raadinayaa si aan inta ugu helo isoo qor hadday ila fahanteen waaye maasha allah maasha allah waaye halkan sidee uga helayaa waaye waa tan marka qaacidadu waa tan sidee uga helayaa halkan imbalse correction waxaad uga helaysaa qiimo walba hadalkayga faham qiimo walba oo tareenkaaga ka taga tareen line ku sawirnaa waa imbalse qiimo walba ku soo noqdaana waa correction qiimo walba ku taga waa imbalse qiimo walba ku taga ku soo noqda correction waa sidaa darteed sababtay mar walba chance walba tareen line oo sawiraano si aan u ogaano correction-ka iyo imbalse-ga jira la socotaa waa qodobtaas waxaan ku yidhi qiimo walba oo ka taga tareen line-kaaga markaa tareen line sawiratid shaqadaada dhamaysid ilaa 1 hour-ka maxaad ogaysaa trailing ka tagay waa imbalse ku soo noqday correction kan waa maxay marka waa qiimo saas soconay wareegi market waa continuation baat shuruucdu maxay aad eeganaysaa continuation marka heshid number 1 imba ka soo qaad trailing waa kan uu tagay uu soo noqday shardiga koowaad number 1 trailing uu jabin number 2 dhexdiisa soo dhaafin Fibonacci 60 to 50 waa dhigan doona inuu soo dhaafin labada shay eegaysaa waa labada continuation baad hada meey waa imbalsigu waa ka taga kana waa taga waxaan u baahanay marka mar walba in akhri maayo keebaatay kana oranay si isha ugu dhacdo tareen leen baa isla isticmaalaya marka hore maxaan ku yiri qiimo chance walba oo ku soo baxa time frame tareen leen sameeyo qiimo walba oo ka tagay tareen leen kaagana waa imbalse mid walba ku soo noqday waa correction sidaa darteed ilaa iyo meesha u dambayso waa wada saa maxaan sameeynaa marka correction walba madaxiisa maxaan ku samaysanayaa imbalse khaasatan correction-ka ugu dambeeya tusaalahaan kanoo kale hadda dhac waan ku samaysanaya hadda kaas waa correction xagee correction u tahay dheyga ku fiirso xagee correction u tahay dheyga oo say ugu tahay sababta waxaan kugu yidhi waa bullback baan ka wadaa correction-ka haddaad fahmin waxaan kugu yidhi qiimihii soo tegay imbalse buu ahaa ka noqonayaana waa bullback iyo correction sidaa darteed mar allaala markuu ii sameeyo chance trend leen ku samaynayaa sidee markuu chance trend lagu sameeyo sidii ugu sameynaya way aan ku sheego wuxuu ku sameynayaa labadii shardi waa inuu laba jeer taabtaa double tap laga rabo waa inuu laba jeer taabtaa hadduu laba jeer taabto waa maxay
waa impulse halay waa correction trail line-kaas inaad isticmaashaana way saxsan tahay trail line-ka inaad isticmaashaana way saxsan tahay ku soo noqo markaa hadda kanoo kale isna waxaan isticmaalay marka dhaygaan joogay waxaan arkay qiimo soo noqday qiimahaasi laba touch may sameeyey haa hadduu laba touch ii sameeyo bom waayo maxaa laba touch u leeyahay kuwa kale oo dhan u fiirso kuwan kale oo dhan u fiirso soo noqday laba touch uu sameeyey ee u fiirso impulse uu samaystay ee kan uu soo noqday laba touch kuma samayn markaa soo noqday iyo mar labaadkii waa ka dhaafay saa darteed still ma haysid meesha doonaysa kan waa soo noqday markaa uu soo noqday mooyaane soo noqday mar labaadkii waa bax kana waa soo noqday mar labaadkiina waa soo noqday saas wuxuu igu noqday correction ka doonayay inuu saa igu soo noqdaa ilaa halkan ugu yimaada wuxuu noqonayaa continuation pattern haddaad pattern iska dib ugu noqotaan halkan maxaa kugu sawirmaya flag pattern qurux badan oo si wacan u muuqanaya oo ka already flag pattern si qurux badan ugu muuqanaya weeyaan soo jeedin waxaan ku yiri trail line karta duusa jabin waa sax sidoo kale yuusan dhaafin Fibonacci marka soo cabirtid yuusan dhaafin oo fiirso oo trail line-kii isku beegan yihiin iyo 50-ga ilaa 60-ga xitaa hadduu kuu socdo decimal inta yuusan dhaafin hadduu halkaa soo aadana halkaa ka noqdo hadduu saa usoo durkana halkaa ka noqdo oo fiirso hadduu tooskiisa sidaa dhuuban kusoo socdana trail line-kii mu ka noqdo oo fiirso waa 61-kii isku kaa waafaqeen hadduu sidaa saa usoo durdurkana waxaa ka dhacaya halkaa oo fiirso waxaa ku dhacaya 51 labada jeerba hadduu halkaa ka noqdo suuqaas buul baa ku noqday maxaa sugaysaa marka waa kan marka sababta trail line maxaan ka faa'iiday waxaan ogaanayaa early trade meesha ugu horeysa impulse ka bilaamayo sidee ku ogaanayaa meesha impulse ka bilaamayo waxaan ku ogaanayaa markaan soo sawiray hadeer maxaan sameeyey markaan soo sawiray hadeer correctionkii soo sawiray muxuu sameynayaa qiimahani halkan buu imaanayaa kadib uu noqonayaa marka trail line-kii uu saa u jabiyo uu saa u dhaafo buu micnaheedu waxa impulse-gaasi waa dhab uu bilaamo hadda halkan fiirso markii dhaweyd trail line-ka markuu jabiyey u fiirso waaye trail line caadi ku sawiro u fiirso trail line caadi weeyaan weliba loo jeedid goormuu shaqeeyey mar alaalay markuu saa u dhaafay marka maxaa ku caddaaday inay tahay impulse inuu yahay maxaa ku caddaaday inuu yahay impulse okay hadda waxaan isla fahanay marka waxaan isla fahanay mar walba waxaan sawirayo maxaa sameynayaa aan sawirka kusoo ceshino marka maxaan sameynayaa kow meelaha haddaan joogo waxaan aadayaa 10 frame-ka weyn second waxaan soo qaadanayaa trail line labo waxaan sawirayaa trail line-ka waxaan ka sawirayaa bull bag-ga saddex waa in labada ugu horeeya waa inay ii siman yihiin wixii dambe waxa kaama gelin afar 10 frame-ka inaad usoo degtid maxaa sameynaysaa horta kaweyn intaan usoo degin correction-ka uu soo noqday hadduu soo noqdo isna trail line ku sawir maxaan ku garanayaa inuu soo noqday waa in sidii trail line-ka laba jeer uusan meesha maraya ku jirin laga celiyaa marka laba jeer laga celiyo koo waa la celiyo sax macnaha correction-kii bull bag baa isoo bilaabmay halkaa markaan marayo waxaan fahmay qiimahan inuu ku socday buy dahabku inuu yahay buy-dii uu ahaa maxaa dhacay marka maadaama buy ahaa bull bag uu soo samaystay hadda wuxuu kusoo jirayaa sell ilaa intuu kasoo gaadhayo bull bag meesha ku dhammaanayay waayo qiimuhu markuu buy u socdo cabaar bull bag uu samaystaa haddana buy u socdaa haddana bull bag uu samaystaa qiimo qurux badan sidaa u socdaan ma jiro qiimaha saas iskaga socdaan qaab qoyar ba saas iskaga soconayaan qoyar ba saa bull soo samaysanaya haddana qiimo qurux badan markiiba lacag ku siinayaa ma jiro qoyar ba saas iskaga soconay somehow aduu uu gaabinayaa dhinacadaas uu saas samaynayaa waaye ayla baad marka haddana 10 frame-ka baan aadayaa chance trail line haddii ku jiro waan samaynayaa chance trail line haddii ku jiro waan samaynayaa oo dhinaca hadda jihadeedu socda kanoo kale haddaan sawiro kanoo kale haddaan u baahan ku sawiro waayo oo reer trail line-kaas uu jaban yahay maxaan ku yidhi qaacido kale isticmaal maysid prop trail line uma baahnid laakiin xaggee trail line ku jiraa waa kan halkan buu ku jiraa u fiirso waa halkan suu ugu jiraa wuxuu ugu jiraa waa ama 1 hour oo kale u geyso waa kan 1 hour markaad joogtid si wacan ku muuqanaysaa halkan buu ku jiraa trail line waayo sababta ugu jiro iyo wuxuu tarayo sababta halka u geeyay aan galno sababta halka u geeyay aan isla galno marka
waaye waxa ugu muhiimsan waxa weeye haddaa intay la fahantay sida loo sawiro meesha laga soo bilaabayo ka u dambeysay sababta aan kuu sheego marka 4ka iyo 5ka waa idin dul maray waa idin akhriyey taana waa idin akhriyey imbalance correction ku xigo taana waa yahay waa kan marka qaabka igu wada shaqeynaya tape iyo trailer link soo wada shaqeysiinayo oo nimaano marka waxa wada shaqeynayaan waa kan tape qaacidooyinka qaado kow ka waaweyn oo qodob labo sidoo kale imbalance correctionku waxay ka soo bilaabmaan time frame-ka yar yar saddex mar walba oo analyze ama signal aad samaysanaysid waxaa laga maarmaan inaad ogaatid waxa ka dhacaya ka weyn meel la socotaa waaye laba qaabna wada shaqeeyaan inay isku direction yihiin inay kala direction yihiin inta aan fahansiin marka waxaan ku yidhi mar walba time frame-ka time frame-yadu way kala weyn yihiin horta waxay kala leeyihiin waqti mid kandalkii waa daqiiqo socda mid 5 daqiiqo mid 15 daqiiqo mid 30 daqiiqo mid saacad mid 4 saacadood mid maalin buu socda maxaa soconaya intaa per candle waa time ka laga hadlaya per candle-kaasi wuxuu soconayaa saacad marna wuxuu soconayaa maalin marba wuxuu soconayaa marba meeshuu kuu joogu soconayaa sidaa darteed mar walba time frame-ka yari wuxuu turjumaa waxa ka dhacaya time frame-ka weyn taas waa qaacido taas waa qaacida koowaad daabka haddaad real ka wixii daabka waa geli karaan daabka waa geli kartaan already signal bixiyey trailinka si qurux badan buu soo jabiyey maarta trailinku soo jabiyey ilaa wuxuu soconayaa meel fiican buu soconayaa inkastuu cabaar iska sii raagayo marka waa geli kartaan ilaa halka uu soconayaa ugu yaraan ilaa halka soconayaa intee biibs fara badan kama raadiyo stoplaskan waxaad ka dhigansaan cid u baahan geli kartaa stoplaskan kaa kadhigta kaana kaa kadhigta inta way la fahanteen kow qodobada maxaa kamid a marka waayahay aanu dahabkan iskaga tagno marka hadda 10 waa geli kartaa sax amba waan galay anoo geli kartaa already waa galay si marka waan qaatay waan geli kartaa waa ujeeda uu jabiyey laba kandhal baa jabiyey soo hiri waa saddexda soo jabiyey ayaa inuu hadda markii inoo qaado inuu guud baa soo samaysto horta qaadana sidoo kale correction adag oo ku jiray muddo dheer ujeeda correctionku soo jabiyey muddo dheer buu ku jiray saa darteed ujeeda correction ka hadda incubation baad ka sheegay oo kale koo inta ku jiray soo jeedin intee jeer buu taabtay koo labo saddex afar shan intaas jeer baa la celi ugu dambeyntii soo jabiyey soo jeedin that means waa wuxuu socon karaa stoplas waa kaa 13 ka dhigo table hintina 13 buura 13 buura ka dhigo stoplaska waa TB1 ka TB2 ga hadda tada qaadan sax ka dhiganaysaa 12 ma ka dhigo waay kanaan waay tan ku sameysana marka kow dhayga tagaya labo maxaa sameeynaya trail lane ku jira sawiraya trail lane ka dhayga ku jira horta xagan trail lane ku jira waxaan saa weegay ku jira xagan may sababto ah already wala baas waxaan doonayaa trail lane aan jabnayn see ku helaya in baa si xaga ka bilaaban ka sawiranaya marka ujeeda waay tan maaha saas saxbiyo labada u horeysan ku simay ka kuwan way soo dhaafeen way ku noqdeen way bari doonaan qaacida lagu ogaanayo false break out doorta geli doono markaan tasawirtay waxaan tagayaa time frame-kii hoose sidee way isu turjumayaan marka waxay isu turjumayaan hadda time frame-ka already waa break waa la soo jabiyey laakiin way sawiraan ka soo qaadaya la soo jabin
إلا ولي ما هم إلا سوتش بيه إلا وأنت صورة فور هاور هالك كوركشن كنوع كوسا مستكدي بهوس الصعود إلا أنا واقع من إلا سوتش بيه قاعدة وتها تيم حو تبغى يا سوتش بيه وكوركشن سميستو كدنا أو نقطة مركز على سوتش بيه حتى البريد أوت كنير حقاقة لا تنسوا كتم جابين وحي كفاية يستمر كقاعدة maxaan samaynayaa marka ten framekii raabanaad ten framekii muxuu ii sheegayaa wuxuu ii sheegayaa marka soo igu tusay waxa weeyaan suuqii mobile baan usoo fahmay Soomaa baayi xagee laga jiraa ma corruption baa lagu jiraa mise in baa la soo lagu jiraa ii sheegayaa oo soo igu sheegayaa waxaan ku yiri qiimo walba ka tagay waa in baalsi ka ku soo noqday corruption buu ahaa kii ka tagay in baalsi uu ahaa kii ku soo noqday corruption buu ahaa kan ka tagay in baalsi uu ahaa kan ku soo noqday corruption buu ahaa kan ka tagay in baalsi uu ahaa kan ku soo noqday corruption buu ahaa wuxuu ii sheegayaa foorku maxaa lagu sii jiraa mobile ma in baa soo lagu jiraa corruption baa lagu jiraa oo soo igu sheegayaa halka u sareysa trail lane-kii meeshii u sareysay day ku soo sawirtay halka u sareysa baan eegaya trail lane ku jira trail lane-ka ku jira laba mid weeyaan marka ila baahan doo qaacida marna waa isku direction oo marka trail lane-ku saa u dhisan yahay daygu hadda kana oo kale ku saa u dhisan yahay waxay ugu jireen trail lane-ku oo saa u sii dhisan labada trail lane isku direction-ka markuu yaala isku direction isku dhinac u socdaan marna waa kala direction oo sida kana oo kale weeyaan hadda aan dul taaganahay oo trail lane-ku markuu saa yahay kan dambe trail lane-ka waa sida maarta dib ugu soo noqonaya iskhilaafsan marna waa la socdaa oo korba loo socdaa salahan markii qiimuhu ka soo qaad halka wixii loo gaaray inaan arkin ka soo qaad halka meena soo gaaray inta suuq ma soo gaarin ka soo qaad aan calaamadiyay suuq markii halka uu marayay aan dheega yimid aan soo sawirtay dheegaan yimid u fiirso dheegaan tagay intaas oo dhan suuq ma marayay marka intaan dhinaca ku taala suuq ma marayay labadan baa soo helay oo soo sawirtay waaye 4 hour kan marka 4 hour ku imid maxay sawirmay iyada inta ay sawirmay maxay sawirmay trail lane cusub oo maxay sheegaya isna kor sheegaya xaq ka soo qabtay halkan oo ka saas ugu soo ilaa inta la mari maaye marka u fiirso suuqi kan muxuu ahaa aftareen kana waa maxay aftareen waxay u socdaan isku direction isku dhinac halka meel fahme isku direction hada faatiin waa wani soo qora ما شاء الله ما شاء الله واي كلا بعضنا waa maxay markaa kala direction waa maxay kala direction waxa weeyaan kala direction waxa weeyaan waa marka hadda meesha la marayo kale 4 hour kii baan imid Cabdiraxiim ma fahmin waay oo ku celin doona kala direction waa maxay kala direction waxa weeyaan meesha hadda la marayo markaan imid meesha markaan la marayaan imid ba maxaan arkay meeshii trail lane-kii labaad ee 4 hour ka eeg dayga soo sawirtay daygu muxuu ii sameeyay trail lane up train ah oo baa ii sheegaya u fiirso 4 hour ka imid 4 hour kana muxuu ii sameeyay trail lane labaad oo ii sheegaya inuu yahay wali 1 hour ka si waxaan u arkaysaa trail lane labaad oo sel ah oo jeeda ii sameeyay trail lane labaad oo maxay ah sel ah oo maxaan ku yiri 1 2 3 jeer mutaabto maxay labadaas sameeyeen hadeer waxay u socdaan kala direction midna xaggan buu u socdaa bay midna wuxuu u socdaa sel Cabdiraxiim halka ay faham waa marka waan ku yiri marka labaduba bay u socdaan isku direction baa la yiraahdaa time frame-ka weyn iyo time frame-ka ka yari ama time frame-yadu labada time frame sawirta marka isku dhinac u socdaan maxaa la yiraahdaa isku direction marka midna kor u socdo midna hoos socdo maxaa la yiraahdaa kala direction kala dhinac Cabdiraxiim inta ma fahamtay إيش هو هذا فهمتي؟ شيخ عبد الرحيم شيخ عبد الله واي maxay macna kala sameeyay maxay tahay waa tan macnuhu marka hadii ay isku direction socdaan impulse wala wadeer impulse ku wada jiraan hadii isku direction socdaan labaduba hadii isku direction socdaan impulse ku wada jiraan hadii kala direction socdaan maxay ku wada jiraan midna muxuu ku jiraa impulse midna muxuu ku jiraa correction waaye macnaha hadii sida hadda kanaan soo sawirtay maxay u sawirmay aftareen
kii kalaan sawirtay 4 hour ka yimid isna after ugu yimid labaduba waa impulse bay sameynayaan waa markay ugu fiican tahay inaad gashid halka markaad buy ka gashid kalsooni buuxda qabtaa waayo kama baqasid gadaal wuxuu dhan wada buy marka ugu fiican tahay marka kale waa taxadar ku shaqeysanaysaa haddii waa yahay ay dhacdo ka soo qaad sida hadda aan ku taagno kala dhacday kala dhaarasho ma noqday tan hoos u socotaa macnaheedu waa maxay way isturjumayaan si turjumayaan wuxuu kuu sheegayaa tareen leenkii 4 hour-ku wuxuu kuu sheegayaa wuxuu ku leeyahay niyo howdhe tareen suuqii aftareenka ahaa suuqii aftareenka kuu ahaa iska xusaac niyo suuqii aftareenka kuu ahaa wuxuu samaysanayaa bullbag wuu turjumayaa wuxuu samaysanayaa bullbag sidii hadda dahabka oo kale ku fiirso dahabka kale halka dahab maxaa kaa muuqda halka waxaa kaa muuqda muxuu sameeyey dhayga muxuu inoo sameeyey dhayga muxuu kuu sameeyey aftareen dhayga muxuu kuu sameeyey aftareen 4 hour-kii baa timid muxuu kuu sameeyey 4 hour-kiina 4 hour-kiina muxuu kuu sameeyey down train soo jeed waa kala dhaarasha waxaan ka faa'iiday in suuqii dahabku buy yahay horta asal waa buy laakiin iminka waa sell sababtoo ah buy-gii dhayga ahaa wuxuu samaysanayaa bullbag allahu magantaa war mintaa ma fahanteen maxaan samaynaya marka waay hal mar baan qacida soo dulmaraya si ila fahantaan tag time frame-ka weyn sawir jaaniska kugu jira ee tareen lena meesha ku jira and then tag time frame maxaa raadinaysaa in baa lasigu meey corruptionkii meey maxaa lagu jiraa halkan maxaad kugu muuqdaa waxaan kugu yidhi qiimaha ka taga halkan waa impulse qiimaha kusoo noqdaana waa corruption waaye waa corruption suu yahay corruption maadaama qiimo kusoo socdaan maxaa samaysanayaa tareen line baa qiimaha soo noqday xagga sare maxaan kaga soo qabanayaa tareen line xagga sare maxaan kaga soo qabanayaa tareen line tareen lineka maxaa shardiya mar 2 jeer iyo ka badan inay taabtaan mar 2 jeer iyo ka badan inay taabtaan waa shardiya soo jeedid tareen lineka samaysanayaa tareen lineka wuxuu sheegay in loo soo socdo hoos in loo soo socdo xagaan tagaya marka 1 hour-ka maxaan doonayaa asal maxaan ku jiray buy maxaan kaloo soo fahmay inay suuqu yahay kala dhaarasho oo macnaha tahay suuqii aftareenka ahaa iska ilaali wuxuu ku jiraa sell oo macnaheedu tahay wuxuu sameynayaa bullbag xaguu bullbag kusoo taabanaya wuxuu soo taabanaya tareen lineka markuu marayo qiimaha wada ilaalinaysaa hadduu hoos soo dhaafo wuxuu noqday sell hadduu noqdana wuxuu noqday buy inta waa la fahma jacab qaabka suuqa loo analyze karayo ilaa 1 hour ka jooga adeer 1 hour marka joogo tareen lineka ku jira may waa kan tareen lineka wuxuu turjumayaa 4 hour kii dhaygo kan yimid wuxuu leeyahay 4 hour wuxuu sheegayaa goorta la soo dhaafo goorta tareen lineka labaad la soo dhaafo already waa la soo dhaafiyaan halka dhigin sharciga tareen lineka ilaali 2 jeer oo meesha la marayo inuu taabtaa 1 2 wuu jeedaa hadda gidaarka waa la soo jabiyay 1 2 jeer la soo jabiyay xaguu hadda ku socdaa wuxuu sheegayaa markan wuxuu kuu sheegayaa maadaama 2 jeer la soo taabtay in qiimahan uu socdo hoos socdo mar walba tareen lineka lagu jabiyana waa intari waa gelaysaa marka intaa yarba ka faa'iideysanaysaa maankan maxaad ku haysaa suuqu inuu aftaran yahay oo gidaarkii dhayliga waayahay casharkeena duumaya intaas inoogu ekaanayaa haddii ilaha yidhaahdo sida fibnaasha lagu isticmaalo wixii aad su-aal ka qabtaan oo aad chat ku qorasaanba casharka dambe ka dhigan haddii ilaha yidhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala